wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa Soomaali weyn production kuna soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya buuq ka dhashay tallaabo culus oo waxa la qaaday ra'iisul wasaare Xamza iyo golihiisa wasiirada iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo si weyn kaga carooday waxaan idin wadaagi doonaa khilaafka madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamza oo dibadda yimaaday maxay tahay arrinta isku khilaafeen ra'iisul wasaare Xamza iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud barnaamij wareedkeena ayaanu idinku bidhaamin doonaa qodobada kale waa daawo doontaana waxaa ka mid noqonaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo maxkamad la soo taagayo iyo howlaha gargaarka oo toos loo hoosgeeyay xafiiska ra'iisul wasaare Xamza wararkii ugu dambeeyay ayaan idin la wadaagi doonaa macluumaadada kalena waxaa ka mid noqonaya taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage oo ka naxsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadaba maxay tahay talaabada uu ku dhaqaaqay General Odawa Yusuf Raage xog iyo macluumaad ku saabsan ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamij wareedkan qodobadana kalena waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo xaalad amni oo halis ah ku galay degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan saraakiisha ka tirsan ciidamada dowladda oo dayacay amniga Cali Guudlaabe iyo Al-Shabaab oo helay xogta guriga uu degan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen macluumaad arrimahaas ku saabsan ayaanu idin soo gudbin doonaa qodobadana kalena waxaa ka mid noqonaya Mahad Salaad oo qaabilay sirdoon ka socda dowladda Masar iyo xog laga helay kulan ay ku yeesheen magaalada qodobadana kalena waxaa ka mid noqonaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo abaabulayo mooshin ka dhan ah ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre iyo khilaaf xoog leh oo soo kala dhaxgalay labada mas'uul wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa oo ka shifay qorshe damul jadiid u diyaarisay xukuumadda dan qaran ee ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre maxay tahay qorshaha ka qarsoon oo ay damul jadiid u diyaarisay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre iyo xukuumaddiisa barnaamij wareedkan ayaan idinku bidhaamin doonaa barnaamij wareedkan waxaan idinku bidhaamin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo shir degdeg ah oo ay xalay golaha wasiirada ku yeesheen filla Soomaaliya shaqada madoobe oo qabtay mooshin ka dhan ah xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre barnaamij wareedkan ayaad kaga boga doontaan macluumaadadaas iyo kuwa kale oo idin qarinayo ayaad ku daawan doontaan haddii aad nagu cusubta waxaanu kaa codsanaynaa daawada inaad subscribe saarato barteena YouTube-ka muuqaalkan aad la wadaagto saaxiibadaada kale mahadsanidin markaana waxaanu gudageli doonaa faahfaahinta inagoo ku bilaabi doono shir degdeg ah oo golaha wasiirada xalay ay isugu yimaadeen filla Soomaaliya shirkii golaha wasiirada Soomaaliya ee xalay ku soo gabagaboobay filla Soomaaliya ayaa waxaa dib loo dhigay magacaabida qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada iyo safiirada dalalka hase yeeshee waxaa laga hadlay arrimaha abaaraha dalka ka jira golaha wasiirada ayaa u codeeyay in ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaabilsan arrimaha abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame loo hoosgeeyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya sidoo kale shirka golaha wasiirada ayaa lagu magacaabay guddi qaran oo ka shaqeynaya arrimaha gurmadka abaaraha dalka ka jira Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa markii hore toos u hoos imaan jiray madaxweynaha Soomaaliya oo wakiilkiisa arrimaha abaaraha u ahaa balse hadda wixii ka dambeeyay waxa uu hoos imaan doonaa wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya laakiin lama oga sida uu go'aankan ku aqbali doono Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waayadii ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegay in khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre iyadoo la isku hayo lacagaha deeqaha caalamka ee ka imaanayo dowladaha taageera Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa u arkaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in uu afka u dhigtay dhammaan ilihii dhaqaale oo soo gali lahaa xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre golaha wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa doodada ka yeeshay in xafiiska arrimaha gargaarka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame loo hoosgeeyo wasaaradda arrimaha gudaha shaqada Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu qaban jiray ayaa hadda wixii ka dambeeyay waxa qabanaya guddi la ansixiyay xalay oo ka shaqeynaya maareynta musiibooyinka kuwa oo saacado badan dood uu ka taagnaa talaabadan ayaa u muuqata in laga kaaftoomi doono Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa ku eedeynaysa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in uu afka u dhigtay dhammaan dhaqaalihii soo gali lahaa xukuumadda ra'iisul wasaaraha geesta kale taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya ayaa ka naxsaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud taliyooda Yusuf Raage ayaa bilaabay qorshe abaabul ciidan taasi oo uu si weyn kaga naxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya
saacadihii la soo dhaafay oo ay soo baxeen warar sheegayo in xilka laga xayuubinayo taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Odawa Yuusuf Raagi ayaa arrinka markii uu ogaaday taliya Odawa waxa uu bilaabay in uu booqdo wasaaradda gaashaandhigga iyo goobaha kale ee ciidamada militariga ee furumaha ku sugan si uu kala hadlo inqilaab militari oo ay militarigu dalka kula wareegaan. Generaal Odawa Yuusuf Raagi ayaa tallaabadan uu kaga nixiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay timaaday kadib kulan uu la yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saraakiil kale oo ka tirsan nabad iyo nolol. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku dayay in uu kulan degdeg ah la yeesho taliyaha militariga Soomaaliya isla markaana uu kala hadlo qorshaha abaabulka ciidan oo uu Odawa Yuusuf Raagi wado. taliyaha militariga Soomaaliya ayaa aad kaga carooday tallaabada uu ku dhaqaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee uu golaha wasiirada kaga adeejiyay. si kastaba ha noqotee waxay u muuqataa haatan in Generaal Odawa Yuusuf Raagi uu ku guuleystay cabsigelintii uu ku abuuray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Odawa Yuusuf Raagi ayaa ah nin mayl adag oo ay aad kaga baqaan militariga Soomaaliya. geesta kalena waxaa soo ifbaxay khilaaf xooggan oo u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. khilaafkan ayaa yimid markii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre xalay golihiisa wasiirada ay baabi'iyeen shaqadii uu qaban lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo lagu tiriyay inuu yahay milkiilaha dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Damul Jadiid. waxaa lagu waramayaa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tallaabada golaha wasiirada ay qaateen uu aad kaga xumaaday waxaana dibadda timaaday khilaafka ku aadan labada mas'uul ee dalka ugu sareeyo. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ku xumaaday in akoonada lacagaha dibadda laga keeno ee deeqyada gargaarka ah toos ay ugu dhacaan akoono gaar ah oo ay leeyihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, iyadoo sidoo kalena uu ka carooday in wakiilada caalamka ay la shiraan kaliya madaxweynaha iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, taas oo meesha ka saartay awoodda xukuumadda. tani waxa ay sababtay in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre tallaabo uu ka qaado Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, iyadoo geesta kale ay horseeday khilaafka kala dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu dibadda yimaado. hadda waxaa lagu waramayaa in guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Aadan Madoobe uu qabtay mooshin ka dhan ah ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, iyadoo laga cabsi qabo in saacadaha soo aadan ay bilowdaan abaabulka mooshinka ka dhan ah ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay lacaga malaayiin dollar ku bixinayso filla Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray saraakiil ka socda sirdoonka Masar oo u yimaaday kulan gaar ah oo ay la qaataan taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad. ila wareejin lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in kulankan uu horudhac u yahay wafdi ka socdo dowladda Masar oo dhawaan ku soo wajahan magaalada Muqdisho. xogta la helay ayaa sheegayso in Mahad Salaad iyo saraakiisha sirdoonka Masar ay ka wada hadleen qorshaha istiraatiijiga ah oo ay dowladda Masar saldhigga ciidan kaga furanayso Soomaaliya. maalmaha soo aadan ayaa lagu wadaa in dowladda Masar ay bilowdo wejiga ugu horeeya ee dhismaha saldhig military oo ay ka furato Soomaaliya. tani waxay ku soo aadaysaa iyada oo Masar iyo Itoobiya xiisad weyn ay u dhaxayso. geesta kalena waxaa laga deerinayaa xaaladda amni ee madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo dhawaan tagay degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. wararka laga helay degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegayo in saraakiisha ciidamada dowladda ay dayaceen amniga Cali Guudlaabe Xuseen. ila wareejin xilkas ah ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen uu galay halis amni isla markaana xilli uu ku sugan yahay Buulaburde ayaa wararku sheegayaan in al-shabaab ay heleen xogta halka uu ku sugan yahay. warar kala duwan ayaa ka soo baxayo xaaladda halista amni oo uu ku sugan yahay Cali Guudlaabe Xuseen, iyadoo ila wareejin kalena ay sheegayaan in la laayahay madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe. dhawaan ayay ahayd markii uu gaaray magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo dhawaan ay ka socdeen dagaalo ka dhan al-shabaab isla markaana ay ku sugan yihiin taliyayaasha ciidamada qaybahooda kala duwan oo abaabul dagaal ka waday. gudahaan daawadayaashaas ayaan ku soo meerayaa barnaamij wareedka aad kala socoteen Soomaali Weyn Production. tan iyo kulanti dambe nabad iyo warsan.